madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu Turkiga magaca ka bedelo. Haddii aad Google-ka ku qorto Turkey waxaad helaysaa sawirka shimbir. Waxa ay dad badan aaminsan yihiin inuu yahay shimbir aan qurux badnayn, madax iyo qoorta oo aan baala lahayn iyo maqaar laalaada oo u eg burooyinka. Way adag tahay in lagu tiriyo digaaga quruxda badan ee aynu naqaano aadan ahaan shimbirtan. Marka laga soo tago sawirada calanka Turkiga iyo madaxda dalkaasi oo sidoo kale ku soo baxaya, waxaa sidoo kale jira sawirro muujinaya kalkuun, shimbirka loo yaqaan Turkey oo la dubay. Turkiya waa magaca Turkiga ee dalka laga soo bilaabo waqtiyadii hore waxay ka dhigan tahay dhulkii Turkiga. Waxaa laga yaabaa wadamada qaar sida Iceland ay si fiican ula keeneen waxay ugu yeeraan wadankan magaca saxda ah ee Turkiya. Erdogan waxa uu aaminsan yahay in magaca Turkiya uu yahay midka ugu wanaagsan ee muujinaya dhaqanka, ilbaxnimada iyo qiimaha dalka Turkiga. Madaxweynaha ayaa ka codsaday dhammaan shirkadaha iyo warshadaha inay ku shaambadeeyaan wax soo saarkooda Made in Turkiya halka ay ahaan lahayd Made in Turkey. Agaasimaha warfaafinta Farhattin Altun ayaa ololahan ka bilaabay bartiisa Twitter-ka. Haddaba maxaa keenay in luqadda Ingiriiska loogu yeero Turkiga? Hal aragti ayaa jirta. Markii ganacsatadii Istanbul ay digaaga markab u soo direen qarnigii 16 iyo 17 Ingiriiska, waxa uu shimbiraha u bixiyay Turkey oo macnaheedu yahay digaagii Turkiga. Waqtigaas waxay ahayd wax caadi ah in alaabta lagu magacaabo wadanka asal ahaan ay ka timid. Rogaga Baarisiyaanka waxaa loogu yeeri jiray rogagii Turkiga ahaa. Daqiiqda Hindida waxaa loogu yeeri jiray burka Turkiga sababtoo ah alaabtu waxay soo mari jirtay dekedaha Turkiga. Markaa waxaa laga yaabaa inay kugu noqoto wax yaab leh in shimbirkani weyn haysto magac wadan oo ka duwan luqadda Turkiga. Turkidu waxay shimbirkan ugu yeeraan Hindi, waxaana loo soo gaabiyaa Hindistan. Turkidu waxay aaminsan tahay in shimbirku uu ka yimid Hindiya, laakiin Hindi waxay sidoo kale ka dhigan tahay guuldarrooyinka Turkiga. dhowrka toddobaad ee soo socda, Turkigu waxa uu weydiisan doonaa qaramada midoobay in dalka loo diiwaan geliyo magaca Turkey halkii uu ka ahaan lahaa Turkiya, sida ay sheegeen laba sarkaal oo Turki ah.